waxaan ahay nin in badan xanuunsanayay waxaa layga hayaa macdanta waxaa soconaya shahwadii kaadida ayaa soconaysa caruurtii baa ka xanuunsanaysa oo xagga dhimirka afar ka mid ah qaar buu la yahayba oo uu waayeyba wuxuu noo sheegay xataa hooy u deganaa maaragtay inaanu lahayn dad uun dulsaar iyo wixii ilaahay ugu soo dhiibo uu ku nool yahay waa duruufta iyo xaaladda aabbo Soomaaliyeed oo muddo badan xanuun la darisa isla markaana isdhex soconayaan kaadida iyo shahwadu waxaana intaasi u dheer in caruurtiisa qaarkood ay iyaguna xanuunka dhimirka daris la yihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. walaalayaal waxaan ahay Cabdisalaan Xuseen Maxamed waxaan ahay nin in badan xanuunsanayay waxaa layga hayaa macdanta waxaa soconaya shahwadii kaadida ayaa soconaysa waxaa layga hayaa lafta dheer oo dhabarka waa layga hayaa ilaahay baalkaliya wadnaha waa layga qala waan ka xanuunsanayaa dhibaataydu mid fara badan weeye intaas anoo qaba ayaa haddana wax faamil la yiraahdo oo iga xanuunsan yihiin hab ciyaal iga xanuunsan yahay gaaraya 4 wax dhaqaalaha iyo wax tabaro aanu hayaana ma jirto inta badan waxa la igu yiri meelahaas dibadda ayaa wax lagaaga qaban karaa waxaan jeclahay dadka islaamka ah oo waxooda hormarsada oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku raali geliyo waxa amaanada u dhiibtay inay caawiyaan igana saacidaan duruufta iyo dhibta ay haysata oo ila wadaagaan ayaan ka codsanayaa intii ii soo qabatay ama ii soo dadaashay ama in badan wax gacanta igu haysa hadeer gacanta igu haysana mahad baan u celinayaa waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka aakhiraha ugu kabo ayagii culimaa diinka iyo islaamka intii caawisay intaan ay caawinba allah u gargaaraan leeyahay walaalayaal sida xaaladaydu weeye in badanna duruuftan way igu soo noqnoqotay way igu daba dheeraatay waan xallin kari waayey ciddii xalli intaa gacanta igu haysana macnaha awood way u weyda wax ka baxsan bay noqotay siyaadaha waxaan codsanayaa walaalayaal bilisa koo khayr badan baa lagu jiraa dadku xilli uu wax la bixi karo oo macnaha ilaahay darsi wuxuu la bixiyay wixii sadaqaysanayay baa lagu jiraa waxaan leeyahay walaalayaal halla caawiyo gadaal la ii soo fiiriyo hana la ii tixgeliyo duruufta iyo dhibaatada aanu ma keenin ilaahay baa keenay waana ku mahadinayaa waxaan codsanayaa walaalayaal si gaar ah in la ii fiiriyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. walaalayaal sidaa uu sheekh maxamed bay noo sheegay walaalkeena dhibaataysan ee dhibaatada culus haysato waxaynu u baahannahay insha allahu tacaala inaynu iska kaashanno inaynu u gargaarno ninkan musiibooyin badan baa ku kulmay ilaahay unbaa ka dulqaadi kara musiibada koowaad waa xaggii caafimaadkiisii oo aada iyo aada u liita in badanna maaragtay meelo badan lagula tacaalay imika la leeyahay yani lacag kharash badan bay u baahan tahay sidii wax looga qaban lahaa caafimaadkiisa sidoo kale caruurtii baa ka xanuunsanaysa oo xagga dhimirka 4 ka mid ah qaar buu la yahayba oo uu waayeyba oo aanu ilaa imika meelay ku nool yihiin garanayn ehel iyo qaraabo maanta wax u taraya oo la jooga ma jiraan dad baa ilaahay dartii u caawinaya oo dar ilaahay u caawinaya waxa weeyaan hooygii uu deganaa oo laga saaray oo maanta meeluu dego aanu haysan waxa kaba sii daranba yani wixii ay caruurtii familigii ay ku noolaan lahaayeen oo iyaguna aanu haysan oo dee mar hadduu qofkii xanuunsanayaba dee intaa midna ma awoodayo inuu maaragtay u keeno oo uu maaragtay masaariiftii uu usoo shaqeeyo ma awoodayo marka walaalayaal qof kastoo imaqlaya oo codkaygaasi uu gaarayo ninka walaalkeena ilaahay dartii baan anaguba ugu kacnay ha la soo caawiyo dar ilaahay ha loo soo caawiyo sadaqadu waxa weeye yaryaraysi male qof walba waxaad awoodo qofkii helaya $100 $50 $10 lambarada shaashada ka muuqda ha loogu soo diro walaalayaal sidaa maqlayseen ninkaas Cabdisalaam waa nin dhiban oo muddo dheer oo 12 sanadood xanuunka la baxadegayay haddana uu soo ritay ninkaas waxa weeyaan dad maaragtay muslimiin oo Soomaaliya ayuunba gacanta ku hayay muddo dheer
sida noo sheegeen Disaba iyo Jigjiga iyo meelo badan oo markaa uu ku xanuunsanayay ninkaasi waxa u baahan yahay daryeel xaqiiqatan marka koobaad caafimaad tir dibadda in la geeyo oo markaa waxa weeyaan xanuunkiisa wax laga soo qabto waxa kale u baahan yahay daryeel xagga markaa naftiisa iyo qoyskiisa oo sida uu noo sheegay caruurtiisii qaar baa muddada dheer meelay joogaan aanu garanahayn ilaa 4 buu noo sheegay jira oo xanuunsanaya oo xagga dhimirka ka xanuunsanaya wuxuu noo sheegay xataa hooy u deganaa maaragtay inaanu lahayn dad uun dulsaar iyo wixii ilaahay ugu soo dhiibo uu ku nool yahay marka sidaa daraaddeed ilaahay subxaanahu watacaala xoolaha uu na siiyey wuxuu inoogu barakeynayaa markaynu dadka baahan iyo dadka fuqarada ee dadka buka aynu ka caawinayno wax ka tarno waxaan ugu baaqayaa dadka muslimiinta dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay waxa weeyaan walaalka ay soo caawiyaan ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ina faray arraaximuuna yarxamuhum arraxmaan dadka naxariista ilaah raxmaanka ayaa u naxariista sidoo kale ilaahay subxaanahu watacaala waxaa maaragtay dadka jilicsan markaynu u gargaarna ayuu inagana inoo gargaarayaa hal tunsaruuna ilaa biducafaa'ikum sidoo kale kuwa dadka inaga xanuunsanaya ubadkeena iyo waalidiinteena ayuu ilaahay subxaanahu watacaala caafimaad ku siinayaa daawuu mardaakum bisadaq buu nabiga calayhi salaatu dadkiina buka sadaqada ku bogsiiya marka waxaan cod dheer ku codsanaynaa in la soo caawiyo insha Allah lambarada shaashada ku qoran waxa weeyaan wixii loo helayo loogu soo diro ilaahayna subxaanahu watacaala bedel khayr la ayuu siinayaa nabiguna wuxuu calayhi salaatu wasalaam ma naqas almaalu min sadaqa yani maalku sadaqad kuma nuqsaamo lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun yani samafalka iyo khayrka wanaagga gaadhi maysan ilaa bixisaan waxaynu jecelahay xoolaheenu waa waxaynu jecelahay laakiin wuxuu ilaahay jecel yahay iyo meeshuu ilaahay jecel yahay ku bixinaynaa isagana waxaynu ugu ducaynaynaa qof walba in leena ugu soo ducayno ilaahay caafimaad taama oo xooggiisa ku shaqaystay ilaahay uu siiyo fadlan ka qayb qaado caawinta aabbahan laga yaabaa wax kooban oo aad bixisaa inay wax weyn ka tarto isla markaasina ay beddesho noloshiisa